hargeysa magaalada hargeysa waxaa hadda ka socota ciyaar aad u xiiso badan oo dhex maraysa laba koox oo kala metelaya gobolada Daadmareer iyo Hawd waana ciyaar loogu gudbayo finalka tartanka koobka gobolada Somaliland oo intii muddo ah hargeysa ka socday amaanka aad baa maanta loo adkeeyay oo boolis badan ayaa garoonka ciyaarta ay ka dhacaysa la keenay haddaba sida xaalka garoonku yahay iyo kulanka maantaba waxaan goor sii horeysay ka wareystay Cabdirasaaq Daahir Maxamed Cabdirasaaq Binde oo ciyaaraha ka faalooba haatan waxaan ku suganay Cabdirasaaq oo garoonka dhexdiisa kulankan waa kulan u dhaxeeya gobolka Daadmareer iyo gobolka Hawd maaha kulankii ugu horeeyay labadan gobol iswaajahayaan waa kulankii shanaad ee iswaajihi doonaan tartanka gobolada Somaliland kulankan kii guuleystaa wuxuu u gudbayaa ciyaarta kama dambaysta tartanka gobolada Somaliland taageerayaashu imika garoonku way soo buuxinayaan iyagoo ku tukanaya salaada jimca garoonka dhexdiisa kulankan waxa dawladdu awaamiir ay soo saartay inay labada taageer ka soo kala galaan labada albaab ee ugu waaweyn garoonka weyn ee magaalada Hargeysa albaabka koonfur iyo albaabka waqooyi kuwaas oo ay ka soo galgalayaan taageerayaasha gobolka Daadmareer iyo taageerayaasha gobolka Hawd si ay awaamir dawladdu ay sheegtay inay labada taageer ka soo kala galaan labada albaabka koonfur iyo albaabka waqooyi taageerayaasha gobolka Daadmareer iyo taageerayaasha gobolka Hawd awaamirta waxa soo saaray barsaabka gobolka Maroodijeex iyo maayarka magaalada Hargeysa dawladdu waxay sheegtay in ciidan boolis oo tiro badan la keenayo ciyaarta maanta maxaa ku muuqda maadaama garoonka aad dhex joogto hadda arkaysa imika waxay taageerayaashu imika garoonka soo buuxiyay qayb kamid ciidanka Booliska oo imika amniga sugaya iyagoo taagan halka ay taageerayaashu ka sacabtumayaan waliba leemam u dhaxdhexeenaya taageerayaasha waa kuwa xiisa u haya kulankan xiisaha badan ee Daadmareer iyo gobolka Hawd ciidankuna ammaanka sugayaan iyagoo albaabka taagan oo waliba baaraya qof kasto garoonka soo galaya haday yihiin haweenka iyo haday yihiin ragaba imika ciidanku waxa ay baarayaan haweenka iyo ragga garoonka soo galaya iyagoo aan loo ogoleen caagadaha biyaha xitaa haddii marin yihiin iyo xitaa haddii buuxaanba inaana garoonka loo ogoleen caagad biyaha oo lagu cababa Cabdirasaaq labadan koox markaad ka faallooto bal qiimeyn ku samee labada koox ee maanta ciyaaraya Cabdirasaaq kulankan waa kulamada ugu xiisaha badan tartanka gobolada arday macalinkiisa wada ciyaaraya macalinka leelinaya gobolka Daadmareer waa Maxamed Diradhaba hore waxa uu ahaa macalinka gobolka Maroodijeex ku soo guuleystay 2011 garoonka weyn ee Alams Stadium magaalada Burco isagoo leelinaya gobolka Maroodijeex sidoo kale 2013 ku guuleystay tartanka gobolada Somaliland isagoo macallin u ahaa gobolka Maroodijeex macalinka gobolka Hawd leelinayana 2011 waxa uu kabtan u ahaa gobolka Maroodijeex marka waa arday macalinkii ayaa iska hor imanaya labada macallin waxa la filayaa inay ku ciyaari doonaan qaab ciyaareedka 4-4-3 Cabdirasaaq Ismaan Shambiriyo iyo Maxamed Diradhabana maaha markii ugu horeysay is arki doonaan say kulan hore ay is arkeen kushuna waxay ku raacday Cabdirasaaq Ismaan Shambiriyo kooxdii maanta laga adkaadana way galbanaysaa tii adkaatana ciyaarta finalka ay aadaysaa tii maanta guuleysatay waxay sugi doontaa Maroodijeex iyo Gabiley kii soo baday Cabdirasaaq Binde oo wariye ka faallooda ciyaaraha oo joogay Hargeysa ayuu kaasi ahaa